ilaa laba wiil dhalinyaro Soomaali ah ayaa habeennimadii xalay oo ay taariikhdu ku beegnayd 21 bisha labaad 2018 lagu dilay xaafadda Camden ee magaalada London halka wiil kale oo saddexaad oo Soomaali ahna isla goobtaasi agteeda loogu geystay dhaawac culus. Saddexdan wiil ayaa dilkooda waxaa loo adeegsaday seefaf ay wateen kooxo dhalinyaro aan heybtooda la garanayn. Telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa booqday mid ka mid ah guriga qoyskii dhalay dhalinyaradii sida arxandarada ahayd loo dilay. Hooyo Fawziya Cabdi oo dhashay Saadaq Aadan Maxamed oo 20 jir ahaa ayaa inooga warbixisay sida uu u dhacay dilka wiilkeeda Saadaq loo geystay. Xaray gurigeygan jooga markii la soo wacay markuu dhimanayna lama joogin 3 saac ka hor ay 4 hours ka hor ay ugu dambeysay markii la soo wacayna oo la yiri wiilkaaga dhaawac waayna albaabka waxa ugu soo qaraacay 6 wiil oo Soomaali ah. wiilkii Yaasiin ka saaray shahaadada uu qabtay wuxuu yiri hooyaday iyo aabahay u tag yimaadaan markaan tagana nasiib daro isagoo meed baan tagay booliiska meesha xiray waxaan iri waa wiilkaygi waxay yiraahdeen maxaa cadeynaa inuu wiilkaaga yahay magacaaga sheeg magacayga u sheegay addresskayga telephone numberkayga wiilkayga dhalashadiisa iyo picture-kiisa telefonka uga soo saaray uu qaatay oo ii soo noqday wuxuu yiri waa asaga marka Allah ya raxmaan raaximeen my friend ahaa wuxuu dhiganay jaamacadda Middlesex Hendon Central ku taala wuxuu part time ka shaqeynayay Oxford Circus ku yaala I don't know ma aqaan ilaa hadda wiilkayga sababta loo dilay iyo wuxuu u dhintay mid toona ma aqaan xataa kii hore dhintay. waxaa horay bishii sagaalaad ee sanadii 2017 isla xaafadan Camden loogu dilay wiilkeedii labaad Maxamed Aadan Maxamed oo isna ahaa 21 jir iyo wiil ay walaasheed dhashay oo lagu magacaabayay Maxamed Ciidruus Cabdullaahi oo isna sidaas oo kale la dilay sanadii 2013. Saadaq waxaa ka horeeyay Maxamed oo dhashay September 25 96. Saadaqna wuxuu dhashay October 1997 laba bilood isku xigto laba sano isku xigto marka Maxamed wuxuu dhintay 4 September 2007 waxaana la aasay baadhaygiisii 25 September taasoo igu naxdin weyn badneed. haddana waa number 3 waxaana la dilay waa wiilkii saddexaad same family aniga walaashay marka ma aqaan booliiska wadanka ilmahan midida wataan I don't know aniga kulli waxaan ka dhihi kara malay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun lillahi a'da wa lillahi aqad ilaahay baa nasiiyay awlaada ilaahay baa naga qaatay waana ma aragtay masiiba min Allah ilaahay xaqiis wax ka yimi weeyaan laakiin annaga wadankan uma aanan iman in la ku dhibaateeyo uma aanan iman in caruurteeda lagu laayo uma aanan imanin nabadgelyo soo doonanay laakiin macal asaf nabadgelyo ingiriiska ma aanan helinin maalin kasta caruurteeda saas loo laaya saas loo dilaa ma aragtay community strong oo u hiilisana ma ay lahan. ilaahay ha u naxariisto wiilka maanta ka baxay reerka wiil horena hore uga baxay Saadaq xale markuu dhintay ilaahay ha u naxariistay meedkiisa waa dul taagnayn laakiin nasiib darro ma arki karin mana waxaan ka sheegi karana ma jirto ilmihii meel kasta ay joogaan Soomaalida waa lagu dhameeyay reerkan maanta aan joogno tacsi ka xanuun badan oo maanta taala Camden inay jirto uma maleynaayo. bismillaahir raxmaanir raxiim wax kasto dhaco ilaahay keeno amaanada horta waxa waay maanta hadii aan wax ku dhiibto aan ku dhaw bari waxayga isay waa inay ii celisaa ragaan naga tagay waxay ahayn amaana ilaahayna siiyay shalay intii muhiimka ahayd oo anigu aan dhihi lahaana gabdhii iga horeeya hore u yiri marka waxa amaanada ilaaha lahaa iimaankii markuu ilaahay naga ceshadayna aan ku celinayno samirkeeda aan qaadan lahayn walaashay Allah siiya anigu iga tagay iyadoo ka tagay waxaan leeyahay annaga Soomaali hadaan maxaa noo gaar ah maxaa noo gaara maxaana la ku raadsanayaa maxaan dadka u dhinay adduunka oo dhan wada jooga madow iyo cadaan waxa Soomaali gaar ku ah oo habeen iimaan wiilasha yararka meeshay joogaan ba loogu raadsanayo maxay tahay maxaan annaga galabsanay annaga wadankeena nabadgelyo uga nimid inaan ku helno nabadgelyo kuma haysano. abaayo walaashay Saynab Anguufe wiilkeeda 5 bilood ago waa wiil laga dilay haddana waa kii labaad
alxamdulilah rabbilcaalamiin waa ilmo hooyadoodii aabbahood soo korsaday oo sharaf iyo cis iyo wanaag lagu soo korsaday oo maasha allah ee ilaahay sharfe inay maalin walba wiilashayna mindiyo la geliyo dowladda ingiriiskana nagu fiirsato ilaahay xaqiisa ma aho waa dhaawacsannaha waddankayna nabadgelyad awgeed xumo baa ooga soo cararnay iyo colaad inay maalin walba wiilashaynayo 20 jiro ee 21 jiro maalin walba hortayna lagu dilo indho xumo waa bogane dowladda ingiriiska boqortooyada ingiriiska waa inay wax nooga qabtaan muxuu ahaa wiilashayna maalin walba la dilayno haddee nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed wiilashayna yaryar la dilay maalin walba wax nooga qaban karin fadlan maxaa ka codsanay inay nagu celiyaan ciidayna calankayna nugu celiyaan haddaan nahno shicibka Soomaali indho xumo waa dhimane naf nagu ma jirto waa bislaane maryahi baa qabnaa muxuu ahaa dad waala qof waalan wax ma dhaano waa inay boqortooyada ingiriiska barnaamijkeeda dowladda madaxweynaha ingiriiska waa inay wax nooga qabtaan shicibkayna madaxweynahayna muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeedna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa inuu la hadlaa oo wax nooga qabtaa muxuu ahaa maanta dowlad baa yeelanay waa in wax noo laga qabtaa magaalada London ayaa waxaa ku soo badanaya dilalka noocan oo kala ah sanadan 2018 ayaa dilalka waxa uu sii marayaa ilaa 15 dhalinyaro ah kuwaas oo ay da'doodu u dhaxayso 10 ilaa 18 jir tira inta ka badanna ay dhaawacyadoodu isbitaalada yaalaan Yuusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada London